daawadayaal ku soo dhawaada channelka maalmaha fadlan haddii tahay markii kugu horeysay subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada halkan soo gelino ku soo dhawaada qisad diin ah oo faa'iido badan taas oo mudan in lagu cibra qaato waqtigii Umar bin Khattab radiyallahu anhu oo xukumayay islaamka ayaa saddex qof waxay ka hor keeneen Umar bin Khattab nin dhalinyaro ah waxayna ku yiraahdeen waxaan rabnaa ninka inaad noo qisaasto wuxuu dilay aabaheen Umar bin Khattab ayaa ku yiri maxaad u dishay aabahood ninkii wuxuu ku jawaabay waxaan ahay nin geel jira ah oo geel iyo ari ayaan leeyahay oo aan daajinayay neef geel kamid ah ayaa waxa uu daaqay geed ku yaal dhul uu leeyahay odayga dhagax ayuu qaatay markaas buu ku dhuftay neefkii geela ahaa wuu dhintay dhagaxii baan qaatay oo ku dhuftay markaas buu isna dhintay Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu yiri hadaba waxaan kugu qaadayaa xadka ama dilka ama qisaasta ninkii baa yiri saddex casho isiya waayo aabahay ayaa geeriyooday wuxuuna nooga tagay hanti aniga iyo walaalkay iga yar haddii aad idisho hantidaas way lumaysaa iyo walaalkayba Umar baa yiri yaa ku dameynanayo ninkii baa eegay wajiyada dadka joogay goobta markaas buu yiri ninkaas oo uu ku fiiqay farta saxaabigii weynaa ee Abu Dar Umar wuxuu yiri Abu Dar ninka ma dameynanaysaa Abu Dar wuxuu yiri ha amirkii muuminiintow Umar ayaa wuxuu yiri adiga ma taqaanid hadii la waayo adiga ayaa lagu qaadayaa xadka ama qisaasta Abu Dar wuxuu yiri ana dameynanaya amirkii muuminiintow ninkii waa la fasaxay wuuna baxay maalintii koowaad waa dhamaatay sidoo kale maalintii labaad iyo saddexaad waa ay dhamaadeen dadkii oo dhan waxa ay u cabsanayaan Abu Dar oo si aan loogu qaadin xadka ama dilka hadaba wuxuu waqtiga isguraba waxa la gaaray xilligii ay qorraxdu dhacaysay oo ay maqribkii tahay ayaa waxa meel aad u fog oo saxara ah ka soo muuqday ninkii la wada sugayay isagoo uu ku muuqdo daal iyo safar dheer ayuuna soo hor istaagay amirkii muuminiinta Umar bin Khattab radiyallahu anhu isagoo dhahayo waxaan u dhiibay hantidii iyo walaalkayba abtiyaashiis haddana waa ku imid si aad igu qaadid xadka ama dilka amirkii muuminiintow Umar wuu yaabay wuxuuna su'aalay ninkii wuxuuna ku yiri maxaa ku soo celiyay waxa suurtagal ah inaa baxsatide ninkii baa ku jawaabay waxaan ka baqay in la dhaho dadka islaamka ah dhaxdooda waxa ka dhamaatay balanta Umar misna wuxuu hadana su'aalay Abu Dar oo wuxuu yiri maxaad u dameynatay ninkan adigoo wax aqoon ah u lahayn ya Abu Dar Abu Dar baa ku jawaabay waxaan ka baqay in la dhaho dadka islaamka dhaxdooda waxa ka dhamaatay qayrkii iyo naxariistii inta kadib waxa qisadii la yaabay wiilashii aabood la dilay waxayna yiraahdeen waxaan finay ninkan waxna uma qabno Umar ayaa su'aalay wiilashii oo ku yiri sabab maxaad u cafisay ninkan oo dilay aabihiin wiilashii ayaa waxay ku jawaabeen waxaan ka baqnay in la dhaho dadka islaamka ah dhaxdooda waxa ka dhamaatay cafiskii shaqadan waxa ku sugan cibra qaadasho iyo faa'iidooyin fara badan oo ku saabsan iscafinta iyo is-aaminaadda dadka muslimiinta dhaxdooda in kor loo qaado